gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka Burhaan Aadan Cumar asigoo tixraacayo waajibaadka dastuuriga ah ee guddiga ee ku xusan cutubka 15aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee 2026 wuxuu la wadaagayaa hay'adaha dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed arrimaha soo socdo tallaabo maamul kasto magacaabis kasto iyo dhaar kasto oo ay fulinayso hay'ad dawladeed waa in loo raacaa axkaamta ku xusan dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya tallaabo amba arrin kasto oo ka soo horjeedo dastuurka waxay noqonaysaa wax kama jiraan waxaana waajib dastuuri ah noqonayo in la saxo oo laga dhigo mid sharci ah xubnaha golaha wasiirada oo kamid ah labada gole ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya amba golayaasha golaha wakiilada dawlad goboleedyada waa in ay baneeyaan xilka muddada ku xusan qodobka 19aad farqada labaad si waafaqsan qodobka 8aad farqada labaad ee xeerka F iyo qodobka 117aad farqada 3aad xeerka ee dastuurka sidoo kale xilkii dambe oo la magacaabayo waa in loo raacaa habraaca ku xusan dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya guddigu wuxuu soo saaray qariidad cad oo la xiriirto kala guurka iyo dhaqangelinta dastuurka wuxuu sidoo kale soo saari doonaa qorshaha wacyigelinta dastuurka guddigu wuxuu ku dadaalayaa in muwaadin kasto oo helo nuqul ka mid ah dastuurka sida ugu sahlanna lagu gaarsiiyo dhammaan muwaadiniinta